waxaan doonayaa inaan idin wadaago sheeko iyo qiso aad iyo aad u yaab badan oo ku saabsan hooyo Soomaaliyeed oo quraanka caruurteeda iyadu guriga ku xafidsiisay juhdigeegiina uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u barakeeyay aanu aragnay dad badan ay nala arkeen laakiin hooyadani waxaynu gala nooshahay magaalada Portland aynu gala nooshahay gobolka Tennessee ayay ka soo guureen reerku aabaha caruurtaasi ayaa sheekadan ila wadaagay Ramadaantii hore caruurtaasi wiilka ugu weyn Khalid waa xaafid weeyaan sanadkan wuxuu ka takharujayaa الجامعة الإسلامية المدينة المنورة سنة كورنا وحو كميدها قرادي صلاة التراويح من مساجد كيغا بورنان مسجد الصبر صلاة التراويح دي تكونيسي تراويح دي قيامكي عباس ويل كلاباد يسونا وحافظ ويان وتقريبا وإلا سقالك بتشير ويان محمد وويل يروتو من شره لكن وحوين وآية في حفظ كتاب الله عز وجل ولا تعجب السائل ما هاي رسول القرآن كو حفظ سنيهي وحكاسي يابين يستثق هذا يكل صوني ذا ويسكو قبل من القرآن كآخرها أيوه وحتى أمريكا قاركود هدي قف ككرد جي سنة يا مراجعة ذا وآيات كو قبتو يسجيبا وحلو نقنصا أنا قاعدين كنا بيكون نقنصا قبر كلو خديجة سورة النساء بمريسا مركوا عائلة بركيسا وأهل القرآن لكن إخواني أبوه يحيش إنا نسوق جهد كبحن بضن لكن أي هو يدتهي وهو الصوماليات قصة واتنصوص عتيب إلى دقيستا وحيش أباها سي صومالي جزاه الله خير أبو خالد هو يدا مركو خالد هاي إلا تقريبا لحجر ميلهاسي وإن وويلك وين أيه هو يد القرآن كيكون بلاودي عرفتني يقولوا يكون حفظي مدرسة الله ما أدري أيه يد القرآن كيو ده أيه واحد سوي بسديبو يري تيفي وين واللي بقول $1 أنسوسي دور عشاء دور معلومات كده أيه هو يد حيكون براربتي wiilkeygii Khalid quraanka xafidsiinaysay oo TV ku yar mashquulinaya wuxuu abuu yiri iyadoo hooyadii Khalid aanay igala tashan anoo maqan ayay intii TV-gii qaaday dhamaa ee $600 aan soo siiyay ayaa garbage-ka meesha lagu tuuro xashiishka ay ku riday guriga markaan ku soo noqday oo TV-ga horeysan wala tuuray xashiishka lagu tuuray wuxuu yiri xaqiiqatan waan xanaaqay hatta maalmo badan baan hadalkii ku goostay buu reerkii xanaaqaawdi TV-ga $600 soo siiyay isagoo cusub xashiishka ku rid waa sidee waan xanaaqay buu hadalkiina waan ka goostay عرضي مركي وحوجا أيان وحن كل روري ماشي بالسير بالبحر كي وماشي سيا لبلا رقدي سياد هشلو بالصائق ديا تي عصول بقول دولة سوسي on بالبقى أنشرين يا كي تجايا كي يقول رأي أركب قاطي عرضي بس هذا سوق شريرتي هذا اللي كي بيقول إلهي بس سبحانه وتعالى إلهي بإدتشي إلهي أي إدتشي خيرنا إلهي سبحانه وتعالى أركي وكقدري خيركم إلهي كقدري وحويان وعروة حفاظة إن مدرسة الله دين إيه هو يدود أي جوريجا أي كوحفيد سيسي أي جوريجا كوحفيد سيسي خالد إصابة الجامعة الإسلامية دجانا أي شيخ أفغاني وقرابة إن معلمين تا قرآن كاد كوحفيد سيسا المسجد النبوي أي قرآن كدو الأخرى إجازة كقادناي وحفلها إن الشعباء هيد شيخي بوحولي يا قرآن كستون كوبري أديكم أمريكان كيمين أو هاي سكول أمريكان كسر دمي يا قرآن كستون كوبري وحول هو إذا باي برتي
wuxuu hooyadaada quraanka sidaa ku bartay ee aduu aad marxaati ka tahay qiraa'adaadu ay marxaati ka tahay waxaan ku sharfayaa inaan ijaaso u qoro ilaa waa hortiisu marxaatigii yaalay ijaasadii uu soo qoray maamadii wuxuu yiri waxa weeyaan de farxad intee leeg oon la qiyaasi kareen ayay ku farxday aabuu wuxuu ii sheegay waxaan garan waaysan xaaskaygan caruurtaydii sidaan quraanka u xafidsiisay si aan ugu abaalgudo si kasta u fakiray wuxuu waxaan ugu ballan qaaday inaan sanad walba ramadaanta inaan cumrada u diro sanad walba debo aabbo imika waxa jira maamooyin caruurta la dadaalaya aan waxaan arkay nin gabar Soomaaliya oo iga soo ashtakootay ninkeygii oo kule hageen caruurta maxay talay madrasada ma lacag u hayaba ilaa waxa weeyaan gacmo labada wada jir bay ku gooyeen Soomaha abi hooyadii hadeen iska caawineen oo ina iska saacideen in quraankii xafidaan waxa weeyaan waxba hagaagi maayaan qiimaha ay hooyada saalixada ah ee ku fakiraysa in caruurteeda tarbiyad islaami ay ku tarbiyadeyso tarbiyad caruurta lagu tarbiyeeyo oo ka weyn in kitaabka ilaahay la baro oo la xafidsiiyo tarbiyad ka wanaagsan ma jiro waanu fiirsaday caruurta Mareykan ku koraysa in badan caruurta waan la dhaqmay ama in barnaamijyo dacwiya aanu geynay qaar masaajidada lagu sameeyay qaar kaamis aanu geynay waxa ii soo baxday sanado badan kadib in caruurta quraanka la xafidsiiyay hawada xafidaan ama barha ka xafidaan ee madaaris quraana galay inay si weyn uga duwan yihiin dhinaca adabta ixtiraamka ay labada waalid u hayaan ixtiraamka ay dadka waaweyn u hayaan in kalsoonida iyo confidence-ka iyo thiqada ay iyagu isku qabaan caruurta kale aan quraanka soo xafidin way jiraan qaar madaaris quraan soo marin ilaahay hanuuniyay laakiin waxaan ka hadlayaa yani bishakl aam ayaan ka hadlayaa marka ikhwaani wa akhawati waxaan allaha waalidiinta caruurtooda madaaristan keenaya horta khayr bi ilaahay waafajiyay ee ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu mahadnaqa lacagta iyo maalka aad ku bixinaysaan in caruurtiinu ay quraanka idin bartaana waa lacag aydan ku khasaareen tijaaratan lan tabur abadan waa ganacsi aydan ku khasaareen if iyo aakhiraba adduunka wuxuu idin noqonayaa amal saalixa qabriga nuur buu idin noqon doonaa ilmahaaga quraanka xafida waxa weeyaan taaj madaxa lagu saaro ayuu noqon doonaa if iyo aakhira waad ku liibaanaysaa